dhawaanaya ahayd markii diyaarado aan haybtooda la garanayn ay bambooyin qiiq iyo qaac wataa ay ku rideen deegaanka Daarimo ee ka tirsan gobolka Gabiley. haddaba wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka amniga iyo saraakiil ka socota ciidamada booliiska iyo kuwa qaranka ee ku takhasusay waxyaabaha qarxa ayaa soo gaaray deegaankii ay diyaaradahaasi ku rideen bambooyinka. waxayna goobjoog u ahaa maamulka gobolka iyo ka degmada. dhammaan mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen doraad markay saacadu ahayd koodii meelaha ama koodii iyo maridho ayay laba diyaaradood ka soo dhaceen halka koonfurta laga xigta. halka markay ka soo dhaceen ee halka marayaan xaafadda uun agteeda bay sii daayeen de waxaan anagu garanayno ololaya wixii meesha ka dhacay wixii aqoon aanu walaanahay inaanu ka sheegno oo nu eegno markii aanu eegnay wax way dhaceen dadku wuu argagaxsanayay calaamaadna waanu aragnay waxay u baahan yihiin waxani laboratory in la geliyo dib loo qaado. halkan waxaan u nimid marka hawlgalkan mushkiladan meesha ka dhacday deegaanku inoo sheegayaan inaan wax ka ogaano ka farsamo ahaan marka imika meesha exactly waynu oran karnaa wax way ka dhaceen meesha wax dhabi way ka dhaceen lama fudaydsan karade wax shalay baa gurteen oo nolol sheegaya taliska qaybta taliye qaybtu inuu nolol joogo inay naga horeyso Gabiley waynu eegi doonaa qayb saamulana inaga sidina marka wax meesha way ka dhaceen marka sababta laga lahaa danta laga lahaa wuxuu ahaa wuxuu deegaanka yeeli karo wuxuu biyaha yeeli karo wuxuu saxadan dadkan iyo ciyaalkan ag taagan yeeli karo oo baahan in boortani laga bogto inaan halkan kaga jawaabi karin laakiin waxay waynu qaadanay imika ahaana wax mushkilada meesha dhacay ama xoolo meeyda ama dad meeyda ama biyo qayarmayn meesha ugu nimid ma jirto intaasaan ku soo koobin iyo ciidanka miinooyinka iyo walxaha qarxa say xoogagaal ugu noqdaan falkii halkan ka dhacay loona baadho sidaa uu taliyaha qaybta ka warbixiyay saacadda wasiir muddo wiiga way socdeen diyaaraduhu mar labay ku wada socdaan marna saddex bay ku wada socdaan sida ay dadka deegaanka iyo madaxdii ugu horeysay sheegaan halkan saddexdii bisha abaarakoodii iyo maridho duhurnimo labada diyaaradood ay dadku arkeen baa yimid dooxaasay soo daba ka galeeyeen waxna waa rideen wixii ay rideen way naga raadkiisa arkayna inkastoo aynaan arkaynin wax weyn oo ama deen madfac ama gantaal ay rideen oo dhulka wax yeelay laakiin waxa qiiqa iyo ololka sameeyay ee fiidka sameeyay bay rideen waxaad cusub ku leeyahay qodaya laakiin warbixinteen waxa ay ku koobnaanaysaa way nala joogan taliyayaashii labada ciidan qaran debriiska tahay ee militariga tahayba ee hawshan laynoo soo raaciyay wala xogta aynu halkan ka helo waa la noqon doonaa baaristeedana kolley waa la heli doonaa haddii la yiraahdo waxa aynu u baahanahay bar waxyaabaha sidan oo kale u dhaca ee dhacdooyinka dadkeenu qaylo dhaantana faraha badan ay iska daayaan laakiin wixii waaqac ah jira waa eriga waxaan u leeyahay hay'adu hadday badato deegaanka mushkiladeeda ay leedahay wixii rasmi ah la arko in warbixin la soo siiyo mas'uuliyiinta dalka maanta halka waxaan u nimi kormeer ku saabsan ama aanu dawladdu kaga falcelinayso qaylo dhaantii ka timi gobolka Gabiley dhacdadii ahayd daraato maalin afraadii la sheegay inay dhacday diyaarado helikobtera oo halkan dalka soo galay dabeetana wax qarxaya riday runtii ilaa hadda sida warkaba ku maqlayseen wax geeriya ama dhibaato la taaban karo oo dhacday oo diyaaradahaasi geysteen ma hayno idinkuna namaydaan tusin hase yeeshee wixii qarxyadii ka dhacay waynu haynaa iminkana waa arkayseen Gabiley magaaladana way yaalaan xaruntii Briiska hase yeeshee waxaasi saamaynta ay gobolka ku yeelan doonaan iyo waxa ay loogu talagalay hadda ma sheegi karo hase yeeshee baaritaan sida ay idin sheegeen saraakiishu waa la baari doonaa. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen TV-ga RTN deegaanka Daarimo ee gobolka Gabiley.